wiil dhalinyaro ah ayaa wuxuu go'aansaday inuu guursado. ilaahay wuxuu u qadaray inuu helo gabarh Soomaaliyeed oo horay guur u soo martay oo markaa wiil yaroo aan weynayn wadata. shukaansi iyo sheeko kadib way heshiiyeen sidii gabadh loo dooran jiray ee sharafta badnayd ayaa gabadhii loo doontay. hase ahaatee labada dhinacba way iswaafaqeen. halkaa waxaa ka dhacay caqdigii sharciga ahaa ee shareecada islaamku ay qabtay. hase yeeshee wiilku arday buu ahaa, waxbarasho ayuu ku jiray, jeebkiisuna ma xoog badnayn, laakiin caawin dibadeed iyo dadaal asagu uu la imaanayay ayuu rabay reerka inuu ku dhisto. caawin dibadeed oo walaalihii abaan ka wada. gabadhii iyo wiilkii wakhti bay isi sugayeen. haddaan weliba bitaxdiid aan tilmaamo, meherkaa wuxuu dhacay 11 waa bishii Nofeembare. bishii November waa bishii 11 2024. bimacnaa sanadkii la soo dhaafay bishii 11 ayuu meherkaa sharciga ayuu dhacay. wiilku waa diyaar garoobayay, dadaal buu muujinayay, marwadiisa ayuu doonayay inuu guri la yagleelo oo uu reer dhisto. intaa waa bidaayadii iyo bilowgii qisada. hase yeeshee gabadhii shaytaan baa qaaday. shaytaan baa gacmaha u ruxay, calan u babiyey. xanuun iyo hidaaye ayaan ilaahay weydiisanaynaa. gabadhii magaalay tagtay, kadibna nin kaley shukaansatay. si toosa ayuu u weydiiyey. wuxuu ku yidhi, wiilkan aad wadatay aabbihii nin ma kaaga dambeeyey? waxay tiri maya, waa sida la ii soo guuriyey. waxay tiri maya, nin igama dambaynin. ninkii gabadhii waa ku qancay. kadibna arrimihii Soomaali badan ay samayn jireen oo gabadhii in la masaafaysto oo weligeedii aan la raadinin ah ayaa gabadhii lagu go'aansaday. dabcan sheekh baa loo tegey. sheekhii baa gabadhii meheriyey. hoteel baa la degay. aroos baa halkaa lagu galay. xoogaa markii la joogay, gabadhii ninkii waxay u sheegtay inay uur leedahay, weliba 3 wiig ah. waa ninkii dambe. farxad buu la dhacay. waxaan soo ogaanayaa buu yidhi warkan xaqiiqadiisa oo dhakhtarkii buu tegey ama isu raaceen. dhakhtarkiina wuxuu u xaqiijiyey intay gabadhu kula joogtay oo 3 wiig aba ayuu uurkan dhan yahay. wiilkii aad buu u farxay. gabadhii nafaqo badan iyo ilaalin badan ayuu u geystay oo ku ilaashaday. xoogaa markii la joogay, gabadhii waxay go'aansatay inay safar soo gasho. ninkii dambe way la xidhiidhay. waxay tiri, inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun. ilmihii yaraay uurka ku jiray, uurku ku dhintay. sabr iyo iimaan allaha naga siiyo. intaa waxaa dheer, calaa kulli xaal nin baa jiray oo aan la aqalgelaya oon guursanaya. kaa horreeyey adiga, cafwan. waxaa jiray nin adiga kaa horreeyey oon qabay ama iqabay baa jiray. ninkii wuu la yaabay. wax badan ba lama joogine gabadhii markay magaaladeedii saa ugu soo noqotayba, wiilkii hore waa warmooge. wax uu og yahay lama arko. qabanqaabadu iyo diyaargarowgu iyo xoolo soo iibintu iyo durbaan soo gadidda iyo buraanbur soo diyaarintu, gabadhii wiilkii in loo dhisaa la doonayaa. gabadhii sidii bay u dhacday. gabadha horay u mehersanayde reerkiina waxba kama warhayaane sidii ayuu ayuu arooskii u dhacay. hase yeeshee qisadu mar labaad bay halkan ay ka bilaabanaysaa. wiilkii markuu gabadhii guri la galay, dee gabarh 5 bilooda wey.